oo ayada dhahayo anaa wax walba kuu samaynayo meesha waxaa iiga furan boos ayada aan u danaanin karo boos aan ku difaaci loo geysanayo aan kaga soo horjeesan karo boos ninkaa xaqdarrada uu gabadha u geysanayo walba iiga furan wax aanan iiga furnayn male guys nomara meeshan wax qabiil iyo wax ku saabsan ma jiraan ma yaalaan waxyaabahaas xalay ugu dambeysay gabdhaan ka hadlayo oo aan lahaa gabdhu uureeyo gabdhu wasaqeeya magaalada buuxaan shalaydan gabar waxa arkay soo jawaabayso maandeeq liiraa gabadhan waa miskixiyan way xanuunsantahay laakiin waxaan rajeynayaa aba in lagu soo qasbay ila tahay ani maba aaminsanaba qof Malaysia joogo oo ninka u daaninaya hadaa arko in the name of God magaca ilaahan ku dhaaranaya laba mid wa imma ninkan inuu qofka sixray oo sixir ku haysto wa imma inuu hanjabu leeyahay fariiso hadal gabar yaro maskiin oo kaar qaxooti aan lahayn oo la dhahay hadaa hadli weysid aad dhanaba kula jibina maxay sameeyaan marka ha aniga ana la ii shaqeeya maandeeqay maxaa lagu shaqeeyaa abay macaan maryahaaga uraay wax aad qabatin ma lahayn maxaa lagu shaqeeyaa abay adiga yaaban oo gurigiisa casri ciise dhax fadhiye maxaa adiga lagu shaqeeyaa abay hadaad aamusto oo aad dulmiga u dul qaadato oo aad u hadli weysid sida gabdhaha adiga asaagaaga marka dambana wallahi oo billahi waxaan wax ka weynaa kugu dhacay alcamum ninkaas habeen waxa dhacday aniga iyo gabadha iyo macallimo iyo saalax iyo guriga waa la wada buuxay dadka dhanaa wada joogay guriga waa fadhina waxa dhacday in gabadhan ay programka dumarka iyo waxyaabaha ku imaadaan marka u joogay arono ma aqaan way iska yar xanuunsaneed habeen ba waxay tiri shaahidtu aha waa taagnaa wallahi oo billahi oo tallahi maalintii yawm al-qiyaamah liiso istaajina waa taagnaa waxay tiri يعني waxa ku sheegaya dulmiga ugu sareeyo meesha ka socdo ku sheegaya dulmiga ugu koreeyo meesha ka socdo hada anu xanuunsanahay YouTube duubi karo guys ee waa idin sii salaamaya laba wiil kala oo imaatay aba YouTube noo dub kuma duubi karnaa ee abu waa xanuunsanahay ee qalay wiilasha banaanka ka mareen wiilkii qowsaarka ahaa oo ana ma aqaan ka inuu fiyoya in kala laakiin anaga dar Malaysia sida caadigu noo xanuunsan yahay waa noo xanuunsan midka qowsaarka dheer ma rabo inaan sheero si magaciisa sheego midkaas gabadha daba dhigta marka nag aba video YouTube ila duubno aba saa in sameeyno waxa meesha fadhido wiilka walaashiis milyan bay wadataa asaga podcastida beenta ah sameey milyan buu wataa dumaashidii asaga walaashii milyan bay wadataa gabadhana loo soo wada ragman ayadoo maqan ciwaana laga dhiganayo ayadoo joogtana wajigeeda la isticmaalay dhan kasta gabadhan waa loo hoojiyay macnaha dhan kasta aan ku dhaay maanta koor sheekada meel kama sheegin habeenaan wada meel aan la istaag waxaan ku yiri dadka ayagu kuma dhalinay walaal macaani aan dantayda waxa ahna kaalama hadlaaye waan ku damiirnahay abaayin dadka ma faraha iskaga qaadir saaqad ilaahay bixiyo meelaha wax ku duubatid wax kale ugu meesaneen abuu wax de xumaan meesha imaanaysa aniga wax ma xumeyn karo dadna wajigu ma bedelan karo dadna ma xumeyn karo war gabadhi shalay gurigaaga iyo xaaskaaga sida ugu dadaalaysay oo YouTube-ka dib iga ma ahan dhibaatana iga ma ahan dad inaan ku durayn iga ma aha YouTube-ka gabadha aadna ah gala magaca ugu badan oo laga isticmaalo waa gabadhan magaceeda YouTube-ka aadna gala waxa idin ka codsana YouTube-ka aadna gala sawir ka soo qaada magacyada ugu badan oo la isticmaalo waa gabadhan magaceeda oo aan xaq ku tuuray oo aan saan yeelay oo aan miis garaacay oo aan caay ku dhuftay waxaas ugu badan gabadha kirada gurigeena dhinac ka bixinaysay gabadha idin caawinaysay gabadha idin sabot gareeynay baad maanta ka soo horjeesatay oo YouTube-keedii iyo xoolaheedii iyo waxa ayada lahayd aad dhacdeen marka waxaas wax idin qabta ma dad islaamna saas uma dhaqmaan war yuhuudana saa u dhaqmanin sababtoo ah marka aniga hadda YouTube-keyga aad qaadatid waxaad u dhigantaa badar aan afka gelin rabay adoo dhoonta iga qabto waa halkaas ay qabato macnaha waxa ma cunayso waxba ma cabayso adoo dhahay waa ninka dadka markuu wuxuu kala dagaalaa bartaas halkaas uu dadka kala dagaalaa halkaas barada xumaan kale oo aan ku qabo ma jirto laakiin shakhsiyadaada wallahi waa laciif zaa'ida oo hooseysa maangaab laangaab dadka isku caayaan wallahi laangaabka saxda adigu waa halkaas dadka kala dagaashaa waxa ka dacwoonaysa xaaska aad qabtid walaasheed waxa ka dacwoonaysa gabadhan waxa ka dacwoonaya boqolaal gabdhood dadku waxay leeyihiin ninku waa nin power leh ninku waa nin laga cabsado ninku waa nin saara may ninku wuxuu umada ugu hanjabo waa kaar qaxooti guys UNHCR kaar oo dadku ugu hanjaba
sababtoo aan dadka kale ma haystaan dee aayar warqad buu soo qoranaya oobi ah ummadii la hor imaanaya wax uu dadka dheer yahay oo gooni ah ma jiraan dadkana asagaa ugu maangaabsan asagaana ugu leecibsan niyo marka waxaan aad uga xumahay waxaan uga xumahay inaan gabadha maskiinta ah ishi iyo cuqubadii aad maanta ka gashay gurigaaga ka soo baxday oo xaaskaaga barooranayso oo ilmahaaga kommentiyada tuug waa la leeyahay akhrinayaan oo gabadhi dumaashida ahayd ee ooynayso aan aad uga xumahay ma fahmaysaa hadda wax yar ka hor waad soo hadashay waxaad tiri zaki waa curadkayga waxyaabahaas dhaazimin waxba macquul wax ay keenayaan male aniga waa ku lafa garaacaya ani saasan ku lafa garaacaya waa ku xanuujinaya aniga waa kugu soo mention garanaya waxaan ku dhahayo sidaan ku yeelay waa kugu soo mention garanaya aniga ilaa maalinta aad dhimato waa kula soconaya laakiin gabadha maskiinta banaanka mar hooyaa dhashay reer bay biilataa ilmee haysataa waa gabar maskiina xoolaheeda banaanka uga mar war ma xoolaha dadka masaakiinta ah lagaa qabanaa marka war ma xoola niman war dad ragga Malaysia joog ma xoolahooda iyo hantidooda iyo youtuberadooda iyo ma gacmaha la gashay waa adiga dumarka lagaa celcelinayay oo 50,000 oo ruux iyo 100,000 oo ruux aan wax kale laga hor dheheenin oo laga leeyahay xoolahaygu iga haystaa Soomaali Maxamedey war damiir iyo jir dubaaxayaasha niyo nin baa yimid fanaana wuxuu yiri ninkan lacag buu iga haystaa fanaanku waa iska baxay qof kale yimid ninkan wax buu iga haystaa qofku waa iska baxay gabadhaana timid qofkan wax buu iga haystaa ninkan qof noocu idin la egyahay marka ninkan qof noocu idin la egyahay caawa sidii hore waan ka fiicanahay sababtoo waalidkaagana ma caynayo caruura dhashana ma caynayo hooyadaana ma caynayo aabahana ma caynayo waan ka fiicanahay sidii hore wali waxaan kugu xeerinayaa gabadhan banaanka mar xoolaheedana soo sii meeshaan shalay meeshii aad intaad soo wadatay 3 nin aad guriga imaanaysay oo aad soo weeraraysa ma ah waa lagaa dhaansanaa waana lagu wasa waana lagugu biibaxa gabadhan xoolaheeda soo sii nolosha Malaysia kale ma ah cimrigaaga xaggaas ha ku koobin gabadhan xoolaheeda soo sii aan intaas ku leeyahay saaxib gabadhan xoolaheeda farta ka soo saar meeshii la rabay xoolaheeda inuu ayada siiyo nin kale ay dhalo munaafiqo uu gacanta u gilay ma ninkaas iskala mise gabadhaan ale uu soo hanjabaya hadba gabadha uu dharbaaxaya waxyaabaha ugu xun oo taariikhda Malaysia dhac waxa way gacantiisa inay dhabankeeda gaarto maxaa aad sundus ayaan la gacantaada dhabankeeda u geenayo maxaa u geenayo ninka ilmaha u dhashay kala tageenba korkeeda ma taaban kare hooyadeeda dhashaba way weynaato wata ma dili kartay adi maxaa kuu geeyay maxaqa u leedahay ma ayada kuriisheeda wax ka leedahay su'aal ma kuriisheeda wax ka leedahay maxaa adiga gacantaada dhabankeeda u geeyay waa jaahilnimo famisa gabadha wallahi waa gabar iska maskiina gabar qalbi wanaagsan sidaas daacad ka ah aysan waxbana kala ogeyn oo YouTube-keeda la dhacay saas daacad ka ah gabadha waa iska xabxab laakiin rag xabaqta cunaa ka soo horeeyo oo aan koow ah xoolaheeda soo sii motherfucker gabadha xoolaheeda soo sii waad ku qasbantahay waxaad ugu qasbantahay si xad dhaaf ina xoolaheeda soo siisid waad ku qasbantahay barya maaha maanta marka meesha waxa anaga dhamaanteen isku keenay waa gabadha waxeeda anaga gurigaaga xaaskaaga caruurtaada akhrisanaya commentiyada ay leeyihiin dadka aabaha waa tuug dumaashidaada ooynayso annaga waxba nagama gelin we don't give a fuck family tihiin waa iswadatiin idinka taala saa idinka family u tihiin ba annagana midaan family ugu ah midaan isku qabiil manihin isku meel maana ku soo korin 2 sano ka hor ismaanan aqoonin waxaanoo damqashay waxaan ugu maray dadnimadeedaan aqaanaa maskiinnimadeedaan aqaanaa ixtiraamkeedaan aqaanaa sidee gurigaaga u caawinaysaan aqaanaa sidee ayadoo danteeda wadata intay uga soo tagta taada u fulinaysaan aqaanaa sidaad uga daba wareegan jirtaan aqaanaa xoolaheeda soo sii dadka afka
wanaagga ay ku sameysay meeriya ninka hadduu soo ordo ilkaa kaa daaday yaa kuu maqan cid kuu maqan male gabadha xoolaheeda soo sii carabow gabadhan xoolaheeda soo sii u soo gudbo yaa isoo qabsanaya walaalow iga daadee gabadhan xoolaheeda soo sii warka isma saarno hadalku wuxuu ku bilaabanayaa gabadhan xoolaheeda soo sii wuxuuna ku idlaanayaa gabadhan xoolaheeda soo sii that's it wax kale oo aan ka wada hadlayna ma jirto ani bariis kuma siiya adna bariis ima siisid I don't know I don't even know you waxba ani aad nagama dhaxeeyaan waxba isma naqaano shalay ani aad xurgufeena soo dhaxmartay waa kala dareernay you know why ani hadda maanta ku hortaaganahay because of her ayada darteed sababtoo ah inti laga rabay nin rag inuu u qabto oo u sameeyo oo u hadlaa aniga ugu hadlaa way fahmaysaa u malanaa inti laga rabay inti la iga baahnaa u sameeynaa oo ah xoolaheeda soo sii brother intaysan xaajo kugu fogaanin intaysan dhibaato intaan ka weyn kugu imaanin xoolaheeda soo sii damiir ma lihid ixtiraam ma lihid dhaqan ma lihid ilmahaaga mustaqbalkooda kama fikiraysid mustaqbalka gurigaaga kama fikiraysid xaaskaaga maalin walba ooynaysa nolosheeda kama fikiraysid war bilaa calaykum qof noocee tahay gabadhiisoo barooranayso ku hayso qof aanan kaamirada ka hor qaadi karin who the fuck are you are brother yaa tahay adi xaaskayga maalin walba see tiktok uga dhex oyn kartaa zik Soomaaliya kula hadlaayo marwadaa soo jawaabayso waxa ku salaamay qof kale kula hadlaayo marwadaa soo jawaabayso qof kale seeta ku dhahay marwadaa soo jawaabayso marwada nasiinay u baahan tahay gabadha wajigeeda si fiican u fiiri nasiina rabtaa nasiina seexadhe intaan ka badan waa bislaatay anaa hadlaayo seexadhe adno walaashii ayadana hal fariina u diraa adno adi waa dhimanaysaa ani waa dhimanayaa tuugu ku qabo dhimanayaa qof kastoo adduunyadan saaran u dhimanaya in aad ku taageerta ninkaaga dullinimadan waa wax laga fiican yahay haddaadan xataa uga soo horjeesan karin bulshada ha loo hor imaanin adno waxaa ku qaba nin tuug ah oo dadka lacagta ka dhaca waxaa ku qabo nin dadka hantidooda dhaca sababtoo ah YouTube aniga aan leeyahay de waa hantideeda de YouTube-kayga Zik Somali waa hantideeda ninkii dhaco macnaha aniga hantideedu dhacay waa hanti maguuraan ah dad baa igu xareysan i taageersan i jecel waa hanti wax la beerta dad baa ugu fiican ninkaaga waxaad ku taageersan tahay gabadha inuu YouTube-keeda dhaco deetana uu nin kale gacanteeda u geliyo deetana ninka uu video soo dhigo baad ku taageersan tahay kaliya kuma taageersanida waad ku sii barooranaysaa adna ama gabar intaan inay ka fiican tahay u malaynayaa tahay ninkaaga ha ku taageerin dulmiga ha ku taageerin okay shalay hadal aan dhahaa jiro oo ahaa ogaada dadkan kulligood masiibaa qabsan doonto hadda waa maalin ilaahay hadalkayga meel ku qora kulligiin hadalkayga meel ku qora waxa guriga ka jiro iyo familka haysta wax ka weyn maana waxa guriga hadda ka jira iyo baroortaas iyo qayladaas iyo inkaartaas wax ka weyn areerkaas u imaanaya you know why ugu imaanayaan maalin walba qof maskiin oo Malaysia joogay ku oysiyaan maalin walba gabar maskiina wiil dhalinyaro ah hadda mid yaro maalin weyd ay soo dirayeen videoyaasha TikTok-giisa uu ka bixiyay sababtoo uu xoroobay xor uu noqdo macnaha uu xoroobay wixii la haystanimada uu ka baxay de maxaa keenaysa inuu TikTok ka bixiyo arawan inaan magaciisa sheego marka saxaafow tuug baa tahay khiyaano la tahay xaraami maqdaca tahay gabadha maskiinta ah soo si YouTube-keeda 16 saacadood ka hor waxa marqaati idinkaga ah inuu YouTube-keeda bedelay password-ka 16 saacadood ka hor wuxuu bedelay password-ka YouTube-keeda ما يفهم إنسان لح يطبن ساعة كور وحب بدلي بس ويدك يوتيوب كذا لح يطبن ساعة كدبنا وحو يوتيوب كذا كوري جينين أنا ربينين هم يعيش الشام ويوتيوب كذا كوري جين محاوى حاسس إن مدين تعلق what's going on محاس عضو محاس ده أوصل بين إنسان حاجات كلا درسة والصواب بدنو أنا ليه أنا أقدر حركتها قبلان قبل إن أقدر حصار حوله هذا السياني عليك أنا أسكو إيمانه
waad saqiirtay waad baahatay gurigaad degnayd baad ka guurtay reerkaagii baad xamili weyday wansanayn aad ka guurtay waxaad degtay MCT noloshii baa kuu soo urtay sababta ee nolosha kugu soo urayso nolosha sababta ee kugu soo urayso wax kale maaha waa dulmiga aad maalin walba u geysanaysa dadka masaakiinta ah waa xaq darrada aad kula dhaqmaysa dadka masaakiinta ah runta kuu sheegayaan dadka sidee rabaan ha ii qaataan dadka sidee dhinacay rabaan ha aadaan aniga dad inaan qanciyo meesha aan fadhiyo aniga inaan gabadha maskiinta sabab gareeyo aan fadhiyo ay fahmaysaa malena gabadha YouTube-keeda soo sii hadaadan soo siineenina way kugu fogaanaysaa nooga baxday qolka nacalada ku dhasho was naagtan yaa ii soo galay qolka niyo naga baxday bax way kugu fogaanaysaa kiiskan ay fahmaysaa malena brother gabadha qofka koobaad ka dhax arkaysid waa ani wax kala ma aha YouTube-keeda waxa u jabsanaysid waxa mar walba aad ugu dhaga